sanadkii 2011 warbixin ciwaan looga dhigay xuquuqda naafada Soomaaliya ayaa waxaa sii deysay hay'ad laga leeyahay wadanka Sweden midaas oo sheegtay in tirada dadka Soomaalida ahi 15% ay yihiin kuwa naafo ah maalin kasta dad qiyaas ahaan gaaraya 20 qof ay noqdaan kuwa naafooba Shukri Cali Nuur Aadan waa gabar naafo ah waxay sameeysaa ubaxyada lagu sharxo guryaha markasta waxay hamin jirtay in naafanimadu ay tahay xubnaha balse aqliga laga shaqaysan karo waxay sheegtay Shukri in iyadoo guriga joogto ay sameeyso ubaxyada qurxoon ee lagu sharxo guryaha dhiirigal dad kale oo niyad laga dilay oo dhahay naafaata qofka haduu aqli qabo naafo ma aha siisa banaanba naafo qofka haduu ilaahay aqli siiyo naafo ma ahan marka labadaas danabaay meesha igu jirta in naafadan dhiirigaliyo waxaana ubaxaan hadda qof sameeyaan aan arkin oo inta wax fiirinay arkin qof sameeyay aas dhahay wax cusub waadaama ay yihiin had cilaan oo kale dadka wada yaqaan maxay ahayd macmacaan wala karisa wala sameeyay yaqaan kan laakiin inta arkay dad suubinay ma arkin inta macnaha meel fiirinay oo qof Soomaali suubinay ma arkin labadaas dana igu jirta markaan sida aragtaanba waxaan ku suganahay xaafada Shukri oo ah gabar wax soo saar badan ka sameysay waxyaabo kala duwan soo martay halkan sida u jeedaan waa dalabaad ee Shukri u sameysay qaar kamid ah macaamiisheeda kuwaas ugu yimaada guriga Shukri naafo way tahay oo adimada ka tahay laakiin aqliga iyo fikirka waxay ku sameeysaa hal abuur badan oo dadka xaafada yimaada inta badan waxay ka qaataan fikradaha hal abuurka ay leedahay gabadhan dad badan ayaa waxay ka qaateen aragtida ah in waxyaan ay sameeyso ay soo bariso si ay looga gato suuq u yeeshaan xaafadaha ugu badan xaafada ku hareeraysan dadka joogaana waxay jecel yihiin inay dalabaad ku badiyaan oo qof kasta waxa uu dooranayaa midab isaga u gaar ah haddaba sida jeedaan waxyaabaha qofka uu tuuro oo sida caagadaha iyo waxyaabaha kala duwan Shukri way soo qaaday waxay ka dhigtay ubax waxa laga yaabaa qof macna badan hadda uu leeyahay xaafadna uu saaran yahay dad badanna uu yahay wax nooleynaya jecelkooda ama quruxda gurigooda macaamiisha ubaxyada ka iibsata Shukri waxay ugu yimaadaan guriga iyagoo u sheegta dalabaadka noocyada ubax ay doonayaan in loo sameeyo si ay ugu camiraan quruxda guryaha ay ku nool yihiin hadaan ka waramo doqa waxaan ku doortay gurigeyga aan wuxuu ka sameeysan yahay cadaan iyo madow marka ana dalbaday kan cadaan iyo madow iga sameeyay saasan ku dalbaday marka waana nashqada gurigeyga saasan ugu dalbaday cadaan iyo madow doqeyga caagadaha biyaha laga cabo qofka cabaya macna ka badan inuu biyaha ka cabo uma laha balse quruxda wax kasta ee dunida yaalo waxa macquul ah in wixii laga sameeyay ay yihiin kuwa aan qiimo ku sameyn laakiin qiimo lahaada marka lagu sheego waxay ka kooban yihiin horta wixii wuxuu ka kooban yahay caag caafiga ah litir barka iyo nus litir midka ah uu ka kooban yahay caagadaha oo cabitaanka laga cabo nuucay rabana ahaadaan ee kan cabitaanka laga cabo Coca-Cola camal Fantada nuucyadaas oo kale waa la ka sameey karaa maxay ahayd waxaan ka sameeyaa may kuwan waxa waa ay kamera oo aan bacani saaro waa ana bac saaray waa jarjara caleentana ka dhiga caleen kala ku sameeyna wuxuu ka kooban yahay marka caaga iyo marada iyo kartoon iyo wuxuu ka kooban yahay iyo kooladan isku dhajinaayo iyo bahashaas isku dhajinaayo iyo kooladan iyo wuxuu ka kooban yahay kan nuucyadan kara laga sameeyay kan laga sameeyay intaas ka kooban yahay caaga iyo kartoonka iyo bis iyo marada waa gabi ahaan ubaxyadaani waa dalabaad ay soo dalbadeen macaamiisha Shukri oo ah gabar naafo ah laakiin aragtideedu ay aad u dheer tahay wax saar badan leh oo waxyaabo kala duwan isku soo dayday waqti dheer alabahan quruxda badan ayay sameeyay dad badan ayaa markii xaafadda ku sameeyay waxay ka soo doontaan ubaxyada waxayna aaminsan tahay fikrad ah in marna aan laga niyad jabin nolosha halgan dheerna loo galo in wax kasta la sameeyo qofku aqliga iyo fikirkana laga noqdo curiyaan laakiin adimada laga noqon taana waxay keentay markasta gurigeeda dadku ugu yimaada ay ka qaataan aragtiyo Shukri waxay ku rajo weyn tahay in ubaxyada ay sameeyso ay helaan suuq ka ballaaran midka ku ee gurigeeda iyada oo jecel inay furato dukaankii ubaxyada halkaas oo madal u noqon doonta suuq ka baxsan hoygeeda oo macaamiil badan ku xirmaan hormariya oo wax fiican ka sii dhigo oo maxay ahayd dadka ii dhowlaa iyo qofka si arka la arka maahan dad badan ugu ina dukaan ka dhigo oo dukaanka ubax ka dhigo oo ubaxay kala duwan sameeyo oo dhirka saas kasta ubax leeyahay sameeyo oo macnaheedu wax kasta ubax leeyahay oo midab ah iyo midab kuwan ka sii duwan iyo ka waaweyn iyo ka yar yar ba ina sameeyo iyo alaabta guriga lagu dhajiyo ina si hormariyaan jecel hadda kookoow ay ugu tahay oo markay ay badato insha Allah waqti fiican in noqoto ina dukaan caadi dadka wada yaqaaniin oo wax wadanka laga soo saar aan ka dhigo insha Allah saas jecel horta hawsha marka bilaabay
anaa laba xaba sameeyay gurigaa dhiga miisaa saaray miiska markaa saaray oo aan iska samaysta waay markaa saaray dada igu soo galan guriga maxaa waxaan anaa sameeyay haddaa samaysta anagana maa noo samaysid wixii aan ka sameeya u sheegay iyo caag inuu yahay marka ani markaa arka dadka inay ani waxa iska sameeya iska ana iska sameeya wax ilama ahayn oo saas u waaweyn marka arka inay qofka dadka ay dhahayaan waxaan wax fiican waaye markaasaa bilaab in aan sameeyo dadkana waxay dhahayaan kalarka gurigooda u ag iyo waxaa lasoo dalbana kalarka aan sameynayo waxaa leeyahay cadaan iyo madow kale ii samee macni guriga cadaan iyo madow waa mogta cadaan iyo madow ii samee cadaankaas iyo madowgaas sameyna waxaa la dhahaa beerkaas iyo cadaankaas isku dhexgal waa isku dhexgalina marka faa'iido dadka ay ka helaan waxaa waaye in ani aan u sameeyo kalarka ay rabaan soo dalbada maadaama awal oo dadku imaahay qofku wax oo iska soo gadanaya hadda waxaa la dhahaa kalarkaas iyo samee kalarkaas rabaa saas ku sameeya inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa iyagu aad u iibsada wax soo saarka ka yimaada wadamada dunida halka isku dayga muwaadiniinta wax hal abuura ay noqdaan kuwa aan helin dhiirigelinta ay uga baahnayeen bulshadooda waxaana jira farqi lacageed oo u dhaxeeya qiimaha ubaxyada laga keeno dibadda iyo kuwa lagu hal abuuro wadanka gudihiisa daano ay intay bilowdo meel u saarana arkaanay anoo cilaan doonana xilligaas markaan arkay waxaan dhahay abaa kuwan waa qurxoon yihiin kuwan ka dalbada markaan dalbado way soo bid waan ka qaad hadda kuwaana ii dalban aniga marka maxayton waxaan ku dalbaday oo aan magaalada ku ahaa ay igala fiicnaadeen horta koow awalan markii meesha lagu sharaxo waa ka qurux badan yihiin waana ka qiimo jaban yihiin qiimaheedu meesha adiga $8 $10 wixii laga siinay $3 iyo bar iyo $4 iyo bar wax isku dhow maaha naafanimadu ma aha tiigsi la'aan iyo halkii ugu dambeysay ee hiigsiga qofka naafada ah waalidka Shukri waxay ku taageeraan inay dhiirigelin u noqoto naafada kale iyagoo ku saacida waxyaabaha ay jeceshahay inay samayso dadka niyadda ay isaga dilin oo qofka haduu naafay aqli ilaahay si aqliga laga faa'iideysto maxay ahayd dadka naafada la joogaan ay dhiirigeliyaan sida anoo kale ana hadda waalidkay walaalahayga dhiirigelina ka helaa wixii shaqo sameeyna waa dhahay cilaana saaraha dhahay saar waa ii sameeyay macnaheedu waa liigu dhiirigeliyay waa liigu taageeray cilaanka waa ka soo baxay macmacaana baranahan dhahay aan sameeyna waa sameeyay waa ka soo baxay asagana hadana ubaxa sameeynaha alaabta la ii soo gado waa la ii keenay dhiirigelin waa ayadan marka qofka naafadaan waxa laga rabaa naftirkiisa inuu fakaro ana hadartan hadda qof iska caadi ahaa lahay wax badan faa'iido leh hadda wax soo sameeyo oo wax sameeyo laakiin maadaama qof naafa ah naafada kale si dhiirigelin uga hesho iyo maxay ahayd niyad iska dhim waxa ma qaban kartid saas u soo sameeyay maxay ahayd aan u soo bandhigay marka waxa waaye dhiirigelinta qofka naafada hadda aan ma iska jiifo lahaa hadeer qof igu qasbi lahayd mala inaan wax sameeyo inaan cilaan sameeyo ma igu qasbi lahayn inaan maxay ahayd wax kala sameeyo ma igu qasbi lahayn anaa nafteeda waxa jecelahay inaan wax sameeyo mar cilaan sameeyo mar wax sameeyo hooyaday aabahay waalidkay walaalahay kulli way ugu dhiirigeliyeen waxaa la dhahaa marka dhiirigelintaas ilaahay mahadis inta ku soo gaaray naafada Soomaaliyeed oo duruufo adag soo maray waxay ka qoos diideen waqtiga soconaya inuu dabro awood kasta oo ay leeyihiin waxay u adeegsanayaan inay wax soo hindisaan midaas oo noqonaysa calaamad hor leh oo u muuqanaysa inay wax badan sameey karaan maxamed ciise koona goobjoog muqdisho